جمعية البر waxay u qaybisay cunto karsan oo ay ugu tala galeen dhalinyarada danyarta ah ee darbajiifta ku sugan magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal ee aan haysan hoy iyo daryeel intaba taasi oo ay ku garab istaageen isla markaasina ay ku taakuleeyeen wixii karaankooga ay ku dhaameen waxayna ku qaybiyeen barxadda hore ee masaajidka Abu Hurayra ee magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal markii ay soo afmeereen qaybinta cuntadani karsan ee ay u qaybinayeen dhalinyaradani waxa makarafoonka ku kala dambeeyay mas'uuliyiinta jimciyada Albir waxayna ugu baaqeen ummadda islaamka muxsiniinta ee jecel inay la baxaan ajarka inay hoos u eegaan dhalinyaradani darbajiifta asiyoo u baahan in la gacan qabto loona noqdo garab iyo gaashaan buuxa waxayna hadaladoodu u dhignaayeen sidan subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu nagu boorinayaa subhanahu wa ta'ala inaan masaakiin tacaawino oo aan wax u qabanno wixii awoodeena nabigeena kaleey salaatu wasalaam saas ayuu faraya marka waxa weeyaan waxaad arkaysaan maanta masaakiintii oo de waxa weeyaan meelahaas ku dayacneed ayaan qado u sameeynay alxamdulillah ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu inaga siiyo ajri xasanaad inaga siiyo idinkiina kalena waxaan idinka codsanaynaa wixii aad ku saacawin kartaan insha Allah ta'ala inaad ku saawisan nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa masaakiinta idinka yar ee danyarta wax siiya oo yaani samada arlada iska naxariista ilaahayna samada idinka naxariisanaya saas ayaan markaa idinku boorinaya insha Allah ta'ala maantay waxaan ku furfurnay annaga haddaan nahay jamciyada Albirri inaan muxuu ahaa masaakiintii la ilaaway oo habeenkii ayagoo gaajaysan seexanayaan ayaan ka maaragtaa aad iyo aad ugu dhiidhinay inaan mataqaana aan u samayno qada oo joogto ahaan doonto biidinillaahi ta'ala إلهي وحويري ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا مؤمنين إلهي سداس وكو أماني مرك ولا ليال أنتنا أركيسا أمامنا مغليسا وحان كعد سنينا إن ذلك أن وضنه أي كسوة غيب غاتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وينيغا أركايو وعيال كاير ماركتي أغومها الدربجيفني يوغوم يسكو جران إن شاء الله تعالى عيال غير إن لسوق هذا وحقنا نعطوه قصة بين مجالات بورمي ونكوقودنا وحقوسنا ولا ريال إن شاء الله وهذا الهدف كي يوحي هاي إن وحبرشة يومارك الدريال لصيو مرجع إن شاء الله مسلم ولا لا مسلمين المحسنين توحنا لنا هاي ده حد بواحد كجسوا قيب كلي كريسان إن كجسوا قيب قشان وهي أولاد داس وين وضع الله ومارك كل الراعي النسول بين خوضنا هاي مرجع إن شاء الله تعالى عدي وحقوسه درسنا يسوع يعدي مارك إلهي ترتي أسر دجاليسا ولا يالمون سود وين إن شاء الله تعالى إن وحي إن شاء الله تعالى تكون حين لساننا وندعينا كلا تشن إلهي وجسور دوان لسان ولا ريال وحي الله وحي عاد هلي كريسان وأتكون ترسان كريساننا إن شاء الله تعالى تكون صوت ترسان ولا ريال asi kadib isna geestiisa waxa makarafoonka ka daba qaatay mas'uuliyiinta mid ka mid ah dhalinyarada yaryar ee darbajiifta waxaana uu ummadda islaamka ka codsaday inay soo caawiyaan waxayna hadaladiisu u dhignaayeen sidan maanta nala soo qaybiyay ilaahay iyaguna wax noo qabtaan maanta oo koox cuntada waxay nasiiyeen oo arkaysaan maanta ilaahay maanta waxa siiyo ilaahay jariye ka galiyo wax noo soo taray ilaahay aan soo caawiyo marka suxufi cishqi magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal